maxaa dhici lahaa haddii internetka gebi ahaanba laga waayo adduunka? internetka wuxuu noqday xidig muhiim ah oo nolosha bini'aadanka ku xidhan tahay. maanta wax kasta oo aan samayno, laga bilaabo shaqada, waxbarashada, isgaarsiinta, madadaalada ilaa iyo ganacsiga caalamiga ah, waxay ku tiirsan yihiin internetka. laakiin bal ka waran haddii uu hal mar isdamiyo oo weligiisna la waayo? ma qiyaasi karnaa dunida aan lahayn isku xirnaan, macluumaad fudud oo la heli karo, ama hal abuur tiknoolajiyadda casriga ah? mawduuca maanta waxaan si qoto dheer ah u falqayn doonaa waxa dhici kara haddii internetku gebi ahaanba ka dhammaado adduunka. dib ugu noqo nolosha aan internet lahayn, halkay nolosheennu joogsan lahayd? maxaa samayn doonaa iyo sida dadku ula qabsan doonaan dunida cusub? qaybta koowaad: saamaynta shaqada iyo dhaqaalaha adduunka. shaqada iyo dhaqaalaha dunida maanta waxay gebi ahaanba ku dhisan yihiin internetka. ganacsiyo badan oo caalami ah iyo kuwa yaryarba waxay isticmaalaan internetka si ay u fuliyaan adeegyo, u qabtaan macaamiilka, iyadoo u samaynayo xisaabaad. laakiin ka waran haddii internetka uu ku istaago? shaqooyinka online-ka ah ee joogsada, shaqooyinka fog ee maanta caanka ka ah sida kuwa ay ka tirsan yihiin Zoom, Google Meeting, Slack ama qalab kale oo wada shaqayn ayaa gebi ahaanba la waayi lahaa. dad badan oo noloshooda ku maareeya shaqooyinka noocan ah ayaa waayi lahaa ilo dhaqaale. bangiyada iyo isdhaafsiga lacagaha. bangiyada casriga ah iyo adeegyada maaliyadeed sida lacagaha loo wareejiyo e-commerce-ga iyo xitaa lacagaha caalamiga ah sida cryptocurrency-geeda waxaa istaagi lahaayeen. suuqyada saamiga waxay geli lahaayeen xaalado degdeg ah oo burbur ah, taasoo horseedi karta dhaqaale caalami oo baaba'a. ganacsiyada online-ka ah oo xirmaya. Amazon, eBay, Alibaba iyo adeegyo kale ee ganacsi internetka ayaa si toos ah loo waayi lahaa. dadka ku tiirsan adeegyada sida Uber Eats, DoorDash ama adeegyo kale ee cuntada iyo waxyaabaha kale lagu geeyo guryaha ayaa ku khasbanaan lahaa inay dib u noqdaan dukaamanka dhaqameedka. qaybta labaad: saamaynta isgaarsiinta iyo wada xiriirka. isgaarsiinta casriga ah waxay ku tiirsan tahay internetka. dad badan ayaa maanta isticmaala WhatsApp, Messenger, Telegram iyo email si ay ula xiriiraan saaxiibadooda iyo qoyskooda, xitaa haddii ay kala fog yihiin. haddii internetka la waayo, bal ka waran maxaa dhici lahaa? go'doominta dadka. malaayiin qof oo qoysaskooda iyo saaxiibadooda kala jiraan dalal kala duwan ma awoodi doonaan inay si sahlan u wada xiriiraan. waxaa la isticmaali lahaa habab dhaqameed sida boostada, taasoo qaadan karta maalmo ama toddobaadyo. baraha bulshada oo la waayo. baraha bulshada sida Facebook, Instagram, TikTok iyo YouTube ayaa gebi ahaanba istaagi lahaa. dad badan oo ku tiirsan barahaas si ay noloshooda u wadaagaan ayaa dareemi lahaa kelinimo iyo xitaa niyad jab. xiriirada caalamiga ah oo hoos u dhaca. xiriirka fudud ee u dhexeeya dowladaha, shirkadaha caalamiga ah iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa adkaan doonaan. waxay noqon doontaa duni dib u noqota taleefanada caadiga ah iyo fariimaha boostada oo keliya. qaybta saddexaad: saamaynta waxbarashada iyo macluumaadka. waxbarashada casriga ah waxay noqotay mid ku tiirsan internetka, gaar ahaan kadib musiibadii COVID-19. arday badan iyo macallimiinba waxay u adeegsadeen Zoom, Google Classroom iyo Moodle si ay casharo u bixiyaan ama u qaataan. laakiin internet la'aanta hadday jiri lahayd, maxaa dhici lahaa? waxbarashada fog oo joogsanaysa. waxbarashada online-ka ah ee malaayiin arday ay ku tiirsan yihiin way istaagi lahayd. macallimiintii ardayda waxay ku khasbanaan lahaayeen inay soo noqdaan qaababka dhaqameedka waxbarashada, taas oo mararka qaar noqon karta mid aan la heli karin dhammaan. helitaanka xogta oo yaraada. internetka waa ilaha ugu weyn ee macluumaadka maanta. ardayda, cilmi baarayaasha iyo dadka guud ahaanba waxay waayi lahaayeen awooddooda raadinta macluumaadka degdega ah. buugaag iyo maktabyo dhaqameed ayaa noqon lahaa meesha keliya ee wax laga heli karo. tiknoolajiyadda waxbarashada oo lunta. barnaamijyada tiknoolajiyadda waxbarashada sida duubooyinka fiidiyowyada, koorsooyinka internetka iyo qalabka caawinta ardayda ayaa lumi doona, taasoo caqabad weyn ku noqon karta horumarka xirfadaha iyo aqoonta. qaybta afraad: madadaalada iyo nolosha maalinlaha ah. internetka wuxuu si weyn u bedelay sida dadku u maaweelaan naftooda. haddii uu lumi lahay Netflix iyo YouTube oo maqnaada, madadaalada ugu weyn maanta
sida daawadayaasha filimada Netflix, Hulu iyo muuqaalada YouTube-ka ayaa gabi ahaanba la waayi lahaa. dadku waxay ku khasbanaan lahaayeen inay ku laabtaan isticmaalka TV-yada dhaqameedka ama akhrinta buugaagta. ciyaaraha online-ka oo joogsanaya gamerska ciyaaraha online-ka sida Fortnite, Call of Duty ama PUBG waxay waayi lahaayeen madadaaladooda ugu weyn. cuntada iyo adeegyada kale ayaa hakad geli doona. adeegyada sida Uber Eats, Glovo iyo kuwa kale ee cuntada lagu geeyo guryaha waxay istaagi lahaayeen. dadka ayaa ku khasbanaan lahaa inay dhaqaaqaan suuqa si toos ah. qaybta shanaad adduunka internet la'aanta ma awoodi kartaa inuu ku noolaado. haddii internetku gabi ahaanba la waayo, dunida dadka waxay ku khasbanaan lahaayeen inay ku noqdaan qaab nololeedka dhaqameedkii. qaar ka mid ah isbedelada suurtagalka ah waxaa ka mid ah dib u soo noolayntii hababka isgaarsiintii hore, boostada, taleefannada caadiga ah iyo hababka isgaarsiinta warqadaha ayaa noqon lahaa kuwa ugu muhiimsan ee la isticmaalo. wax soo saarka maxalliga ah oo kordha. ganacsiyo badan oo ku tiirsan caalamiyiinta ayaa burburi doona, taasoo horseedi karta kobcinta ganacsiga maxalli ah. cimilada iyo bay'ada oo faa'iido hesho iyadoo isticmaalka tamarta hoos u dhaco. waxaa laga yaabaa in bay'ada ay si weyn ugu faa'iidaysato internet la'aanta. gabagabadii muuqaalkeena ama gunaanadka, internetka wuxuu si aan la qiyaasi karin ugu xiran yahay nolosha maanta. haddii uu gabi ahaanba isdamiyo, dunida waxay wajihi doontaa caqabado waaweyn oo dhinac walba ah, sida waxbarashada, isgaarsiinta iyo madadaalada. laakiinse sidoo kale waxaa laga yaabaa inay bini'aadamku dib u bartaan nolosha dhaqameedka ay lahaayeen. faa'iidooyinka qaarkood sida xiriirka shakhsiga ah oo qoto dheer ah iyo ku noolaanshaha deegaan nadiif ah. internet la'aantu nolosha waxay noqon kartaa mid adag, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa fursad dib u eegno qiimaha dhabta ah ee isku xirka bini'aadamka. sidee adigu u noolaan lahayd haddii internetku gabi ahaanba istaago? ka dhiiba fikirkaada oo hoos nagula wadaag. waxaan kugu soo dhaweynaynaa Duni Ogsoon. subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan xogag muhiim ah, taariikhooyin iyo nolosha casriga ah si maalinle ah. mahadsanid.